waxaan hambalyo salaan idinkaga sida madaxweyne Cabdullaahi Siciid Bali hambalyo haddaatihi shacabka Puntland haddaatihi hambalyo adii wadnaa munaasabada farxadda waan la qaybsanaynaa aad baan ugu faraxsanahay aniga uma soo korina cid u jawaabo xaasha lillaah uma soo korin shacabkayga inaan qaldo kaliya waxaan u soo koray inaan shacabkayga u hambalyeeyo garaadkayga aan u hambalyeeyo runtii aan jeclahay adeerkay Cali Buraale oo qayb weyn ka ah korintkayga oo saameyn noloshayda ku leh maanta farxad bay ii tahay aad baan ugu faraxsanahay waa idin hambalyeynayna shacabkii Puntland waa idin jecel yihiin anna waa idin jecelnahay mashruuciyaa wadnaa wadada isku xiraysa ma rabo inaan maya ma faanayo kama baxayo waxaan aad ugu faraxsanahay runtii oo aan runtii farxaddeena inaba aan caadi ahayn shacabkeena inuu xaqiiqda og yahay waxa waa la soconaa mana ahayna faahfaahin wasi kastaba ahaatee waa idin hambalyeynaya madaxweyne waa idin soo hambalyeynaya golihi wasiir baarlamaanka kulligeen waa idin duceynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala hala jiro garaadkeena maanta waa maalintii garaadka maaha maalin isku faanfaano oo isku abtirsado waxaa iskale garaadkeena inaan u duceyno la garabkiisa istaagno la shaqayno horumarka magaalada ragaaday waa ognahay taariikhda magaaladan hadda aan joogno dharkayn dhiig badan baa ku daatay sidaa dhiig dambe u daadan shacabka u hormaro wanaag la qabto meel walba laga shaqeeyaa weeyaan shacabkan waa baahan yihiin dharkayn dhibaatooyin badan baan ku arkay runtii maanta wax kale uma joogno waa garaadkeena inaan u hambalyayno aan u duceyno aan garabkiisa istaagno